meeraha Maaris mid ka mid ah meerayaasha ugu cajiibsan koonka. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. haddii aad habeenkii bannaanka u soo baxdo kadibna fiiriso cirka waxaad arkaysaa shayaal badan oo iftiimayo waxyaabahaas ku muuqanaya waxaan u naqaanaa xidigo laakiin xaqiiq ahaan dhammaantood ma wada ahan xidigo waxay isugu jiraan xidigo meerayaal iyo walxa ereedyo kale oo aad u fara badan horey waxaan uga soo hadalnay warbixino ku saabsan meerayaasha kale ah Mercury Venus ama waxa xirka iyo dhulka sidoo kale waxaan ka soo hadalnay macluumaad ku saabsan dayaxa haddii aadan horey u soo daawan muuqaaladaasi waxaan linkiga ku soo dhigi doonaa qaybta description-ka waadna ka daawan kartaa sidoo kale waxaad ka heli kartaa qaybta playlistiga meerayaasha ee kanaalka cilmi baaris haddaba aanu galno muuqaalkeena maanta waxaan ka hadlaynaa meeraha ugu hadalhaynta badan adduunka meera laga sameeyay filimaan iyo dokumentariyo oo dhammaantood lagu soo bandhigay cajaa'ibta meeraha Maaris waa meeraha afraad ee ugu dhow qorraxda magaciisu waa Maaris carabtuna waxay ku magacaawdaa Mariiq halka Soomaalidu u taqaano Faraare meerahan Maaris waa meere aad ugu eg qaabka dhulka haddii aad tagto dusha sare ee meerahan waxaad u malaynaysaa inaad joogto dhulka saxaraha ee qaaradda Afrika sida Liibiya iyo Algeria si aad u ogaato dhab ahaanshaha hadalkan isbarbardhig ku samee labadan muuqaalkan waa dusha sare ee meeraha Maaris muuqaalkan kale waa saxaraha Liibiya ee qaaradda Afrika runtii meerahan waa mid aad ugu eg qaabka dhulka aan ku noolnahay laakiin halkan kama jirto nolol la mid ah tan dhulka hawada meerahan 98% waa carbon dioxide hawada oxygen-ta ee meerahan waa wax ka yar 2% halka tan dhulku tahay 22% haddii aad doonayso inaad booqato meerahan waxaa qasab noqonayso inaad horey u sii qaadato kayd hawooyin oxygen ah maadaama aad u socoto deegaan ay ku gadaaman tahay hawada carbon dioxide ilaa iyo hadda waa meeraha loogu booqashada badan yahay dhanka bini'aadamka waxaa dushiisa lagu dejiyay dayax gacmeedyo badan oo ay dad saaran yihiin iyo kuwa aan dad la soconintaba waxay sawirro ka soo qaadeen meerahan cajiibka ah ee Maaris meerahan Maaris malaayiin kiiloomitir ayuu u jiraa dhulka safar ka badan 7 bilood oo xiriir ah ayay qaadanaysaa in la tago meeraha Mariiqa dhanka cimilada waa uu ka qabow yahay heerkulka dhulka xilliga ugu kulul meerahan waxa uu gaaraa 27 digrii halka xilliga qaboobaha uu gaaro -100 cufka iyo culayska waa kuwa kala duwan labadan meere ee Maaris iyo dhulka tusaale ahaan haddii qof 100 kilogram ah ka tago dhulka kadibna ku istaago meel ka mid ah meerahan Maaris waxa uu culayskiisu noqonayaa 38 kilogram oo kaliya cufis jiidadka labada meere ayaa keenaya kala duwanaanshaha culayska qofka su'aalo badan ayaa la iska weydiiyaa meerahan sida in lagu noolaan jiray iyo in biyo laga heli jiray markaad fiiriso dusha sare ee meerahan waxaad arkaysaa togag waaweyn oo qalalan taasoo saynisyahanada qaar ay ku sheegeen in ay biyo lahaan jirtay malaayiin sano ka hor laakiin xaqiiqada dhabta ah ee meerahan Maaris Allah ayaa garanaya meerahan waxaa ku taala buurta ugu dheer dhammaan 8 meere ee bahda qorraxda waxaana lagu magacaabaa buurta Olympus waxayna kor u taagan tahay in ka badan 25 kilomitir oo dherer ah dhanka kale meerahan waxa uu leeyahay laba dayax oo iftiimisa kuwaasoo lagu kala magacaabo Phobos iyo Deimos isku daya badan oo tijaabo ayaa jira kuwaasoo lagu doonayo in bini'aadamku ku noolaadaan meerahan casaanka ee Maaris beddelka dhulka sida uu sheegay Elon Musk milkiilaha shirkadda SpaceX ee dhanka hawada sare ahna sidoo kale
milkiilaha shirkadda Twitter waxa uu tilmaamay in sanada 2050ka la geyn doono dad fara badan meerahan Mars kadibna laga dhiso guryo ay ku noolaan karaan sidoo kalena lagu talaalo dhir ama geedo maadaama meerahan uusan lahayn wax dhir ah si ay dadku ugu noolaadaan laakiinse waxaan la ogeyn suurtagalnimada mashruucan aadka u ballaaran maadaama safarkiisu uu qaadanayo bilooyin fara badan si loo tago dusha meeraha dhanka kale ma ahan mid ku habboon ama loo diyaariyay nolosha bini'aadamka sida tan dhulka oo kale taasoo Allah ugu talagalay adoomadiisa inay ku noolaadaan waad ku maasan tahay daawashada muuqaalka wa anigoo ah Cabdixafiid Bashiir wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh